Hey, waxaan rabaa inaan message inta ku duubo. And guys, waxaan waqti u helay inaan fiiriyo messengerkayga. Waxaa ku jiro intaas oo maxaan ku dhahaa message oo leeyahay Sharma boy sidan Sharma boy sidan. My goodness, listen guys, okay? And Sharma boy wuu idin sheegay reasonka uu bixiyay apology-ga waxa waaye because of wiilkaasaytii saaxiibkiis inuu save gareeyo, okay? laakiin sheekada waa clear, waa maxaan ku dhahaa Daahir Calisow oo sheeganaya hawiyo iyo waxay u dhaxaysaa wiilkan kaleeto oo mursadaha marka sheekada waxay u taalaa hawiyo dulmiye waay dulkan dawacaan soo marka intuu hawiyo uga soo jawaabay Sharma boy sheekada kuma jiro no, okay? Movie-gana kala baro marooyaa naga dhameystirino, okay? marka ka dhamaado laakiin Sharma boy clearly wuxuu idinku sheegay meesha maqlayn ma idinka wuxuu la qiirooday oo apology-ga u bixiyay because candama tuugleen asiga laakiin sababtu uu tuugay waxa waaye because of Frankis inuu badbaadiyo. Message-yadana iga kala yareeno warka idinka soo idin galaa waaba idin sheegay saa idin sheegay wuxuu idin dhahay aniga ma tuugtami lahayn sababta aan u bariyootamay waxa waaye maxaan ku raahdaa sababta aan u bariyootamay waxa waaye Frankigas inaan badbaadiyo. Hello, Frankiisu badbaadiyo marka, okay? marka maadaama Frankiisu badbaadiyay hadeertan waxay u dhaxaysaa waxa waaye family isbaaro iyo family waraabo. isbartiibada loo baneeyay marka ninka reerka la u daayay, okay? abargidri mursada u taala sheekada ha idinka galaaliyay idinka halkaas ka fadhiistano laakiin cunka sayt naftiis wala badbaadiyay qabiil marabino idinka hadda hawiye u taala gartaano mursadii abargidri u tumantahay badarkan Sharma boy oo mutaalo, okay? Sharma boy ma bariyootam lahayn uu ku dhahay mana hadli lahayn waxa iga hadal siiyo u bari oo sababta u bariyootamay oo u hadlay waxay ahayd wiilka saaxiibkay. message-yadana iga kala yareeyo please, okay? bisinki arrahmaaniga baashana waa wada dhageysateen saa u dhageysateen u dhageystay laakiin afaare interno hoosa jiro oo idinka ogeen oo ani ogahay marka filimkana waxa way movie kala baro marooya hal soo dhameystiro marka la soo dhameystiro ma aragti markaasaytii arkina laakiin meel fiican ismarooya ay lafdiida maxaa la dhahay argaya mal dhino ayaano aamusteen waa faraxsantahay no qaar badan idin dhaafay iga tahay calaalka badan Sharma boy cilmi qabo laakiin cilka shal la baday waa saaxiibkiisas, okay? oo naanaystiisana mursado tahay ninka dhibayn hawrgidri as sheegano Daahir Calisow yaa khanaanti wankian qarmeen war hooy ilmaha ka dhamooteeno awal muxuu kala meesha ku hay journalist muxuu yiri Daahir Calisow investigator silkad baartaade dumarka wadnaa wadaag waxaad soo heshate naga warabnaba inaan ka baranay museum adigoysa waxa sil duubaysid museum inta u dhistida ku sawiradaas dhigay kadama silka naga haniyo dad saas xiiso ugu qabtid oo fotoda ka daashan intee soo qalo waa la qalaa silka deertaan, okay? soo qalo, okay? sheega kale taan rabina sheega laakiin filimka markuu dhamaadan soo qarxina sheekadaasna, okay? dhaaf calaalka Soomaali Maxamed idinkana naacdiina waa badatay sheekada Sharma boy kuma jirto no isbartiibada hadda mursadii habargidri u sharaxantahay, okay? labadaas ninka raaya arkayna fahant marka waxa way naanaysihiina rabtiin inaad qasab nagu bartaan na soo dhaxgelisaan nagu waalataan taa waxaan ku dhahnaa ma naqaanada Soomaaliyeed, okay? laakiin Sharma boy hadeerta ma la haysto beem ku sheegay ana ka ila dhashay Sharma boy day noqotana Sharma boy la aan ku aqalnaa igaarkayga waa afkaashala ku amaanay aniga mar walbeeto qofku waa inuu loyal ahaadaa balan lahaadaa
okay cunugaasna cunug fiican oo qabiil aqoonin oo balan inuu yahay waad aragtaan saaxiibkiis meesha uu la marayaadna arkaysaa naga taayatay naacda waa nagu badiseen waxaan la xisaabeynaa idinku soo duubay videogan saas messengerkaygaan furay markaan hadeertaan ka soo baxay showerka I am in shocked 2000 messages Sharma Boya oh yeah but of course laakiin oohinta fiirin muxuu ku dhahay I did this because of this ku dhahay okay then what تشاكل شرم بوي مؤتالة دهر علسو وحقو حمي وويل كاس ير او دالي كارو جبرتيس دالي كارتو او مرصدو الله بنايها ماشنو مرصدية ورقدر اسكو دانتيناي كيف ديست شرم بوي كما هسنتا هوي معان ويل كصاحب كائه aad maxay ahayd tool u sameysay saaxiibtinimada inay qaali tahay oo maxaan ku dhahay nafta la isu horane waa inaad ogaataan ad barataan saaxiibka lagu ciyaarayo iyo fareenka maxaan ku dhahay la beer dareenayo Soomaaliya joojiya cunugaas yar wax ka barta okay waa maxaan ku dhahay mahadigi Soomaali loo soo diray waay dhabdhaha okay qabiil ma yaqaano laakiin dad cudur qabo ayaa waxay xirban inay poison kooda siiyaan markuu ka bato wax yar soo matagaa aniga every excuse aan ku dhawa u sameeyna Sharma Boy no mar walbeed raxmar waay ayaa Madiina waay xaakal ma kala haysiin xabadna hooyadiisna ayaa kale ayaan ab joogtay qaar badan ay idin dhaafi guys ciao ciao oo sheeganay hawiyo iyo waxa u dhaxaysa wiilkan kaleeto oo murusadaha ah markii sheekada waxa u taalaa hawiyo dulmiye waay dulkan dawacaan soo marka intuu hawiyo uga soo jawaabay Sharma Boy sheekadu kuma jiro no okay movie-gana kala baro marooyaa naga dhameystirin no okay marka ka dhamaado laakiin Sharma Boy clearly wuxuu idinku sheegay meesha maqlayn ma idinka wuxuu la qiirooday oo apology-ga u bixiyay because candama tuugleen asiga laakiin sababtu u tuugay waxa waaye because of Frankis inuu badbaadiyo message-yadana iga kala yareeyno warka idinka soo idin galaa waaba idin sheegay baa idin sheegay wuxuu idin dhahay aniga ma tuugtami lahayn ee sababta aan u bariyootamay waxa waaye maxaan ku raahdaa sababta aan u bariyootamay waxa waaye Frankigas inaan badbaadiyo hello Frankisu badbaadiyo marka okay marka maadaam Frankisu badbaadiyay hadeertan waxay u dhaxaysaa waxa waaye family isbaro iyo family warabo isbartiibada loo baneeyay marka ninka reerka la u daayay okay abargidii murusada u taala sheekada ha idinka galaaliyay idinka halkaas ka fadhiistano laakiin cunugaas naftiis waa la badbaadiyay qabiil la marabino idinka hadda hawiye u taala gartaano murusadii abargidii u tumantahay badarkan Sharma Boy oo mutaalo okay Sharma Boy ma bariyootam lahayn ku dhahay mana hadli lahayn waxa iga hadal siiyo u bari oo sababta u bariyootamay oo u hadlay waxay ahayd wiilka saaxiibkee message-yadana iga kala yareeyo please okay bisinki arrahmaaniga baashan waa wada dhageysateen saa u dhageystay laakiin afaare interno hoosa jiro oo idinka ogeen oo ani ogahay marka filimkana waxa way movie kala baro marooya hal soo dhameystiro marka la soo dhameystiro ma aragti markaas ay tii arkina laakiin meel fiican ismarooya ay lafdiida maxaa la dhahay argaya mal dhina ayaana aamusteen waa faraxsantahay no qaar badan idin dhaafay iga tahay calaalka badan Sharma Boy cilmi qabo laakiin cilka shal la baday waa saaxiibkiisas okay ona neystiisana murusada tahay ninka dhibayn hawrgidir as sheegano daar calisoo yaa 91 qarmeen war hooy ilmaha ka dhamooteeno awal muxuu kala meesha ku hay journalist muxuu yiri daar calisoo investigator silkad baartaade dumarka warniyo nala wadaag waxaad ma ku nooshahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ma ku daashay shaqooyinka xamaaliga ee warehouse ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka shirkadda Forever Living Product
ma tahay qof sumcad iyo maamuus ku leh jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka? Hadday jawaabtaasi tahay haa, waxaa tahay qofkii ku habboonaa ee hore u gaadh shirkadda Forever Living Product. Haddaba daawade, ka mid noqoshada ganacsigan shirkadda Forever Living Product kuma xidhna wax shuruuda aan ka ahayn in da'daadu ay ka weyn tahay 20 iyo in aad heli kartid dhaqaale aad u yar oo aad ku bilaabi kartid. Marka loo eego faa'iidada aad ka heli karto, kaliya magacaaga, emailkaaga, addresskaaga iyo telephone numberkaaga iyo meesha aad degan tahay ayaa lagaga baahan yahay markaad ka mid noqoto shirkadda Forever Living Product. waxaad helaysaa warqaddii kontraktiga ee aad shirkadda la gashay, ID number adiga kuu gaara oo aad kaga adeegan kartid adduunka oo dhan hab online iyo off online si aad u doonatid waxa aad doonayso. waa qiimo dhimis shirkaddani ayay samaysaa. qiimo dhimiska iibka aad samayn doontid oo u dhaxaysa 5% ilaa 35% ilaa ay laga gaarayo 48%. maxay iibisaa haddaba shirkaddan Forever Living Product? shirkaddani waxay soo saartaa productyo ama alaabo loo isticmaalo isqurxinta dumarka, caafimaadka iyo miisaan dhimista ama miisaan kordhinta. waxaana ay ka farsamaysaa geedka loo yaqaano dacarta oo hodan ku ah geyiga Soomaalida iyo malab wax kiimika ahna ma laha. waxaad samayn doontaa ganacsi adiga kuu gaara oo aad maamulatid, aadna ka samayn kartid dhaqaale aan xad lahayn. waxaad ku biiraysaa bulsho ganacsi oo iswada caawimaysa. waxaad heli doontaa tababar iyo aqoon kororsi bilaasha oo free si aad u gaadhid heerka aad doonaysid. waxaad u kala gudbi doontaa darajooyin waaweyn oo qadarintooda iyo qiimahoodaba leh. haddaba darajooyinkan aad gaari karto oo shirkaddan aad ka gaari karto maxay yihiin? sideese u gaari kartaa? waxay darajooyinkan ay ka kooban yihiin 13 darajo oo midka kale ay ka sarreyso. ta koowaad ayaa inaad noqoto assistant supervisor. tan labaad ayaa supervisor. ta saddexaad ayaa assistant management. ta afraad ayaa manager. ta shanaad ayaa senior manager. ta lixaad ayaa eagle manager. ta toddobaad ayaa soaring manager iyo safir manager, diamond safir manager iyo kuwo kale oo badan oo darajada kale ay ka sarreyso kana dhaqaale badan tahay. dhammaan darajooyinkaasi waa kuwo aad xaqiijin kartid midba midka ay ka sarreyso aad bay uga dhaqaale badan tahay. waxaad kaloo shirkadda ka heli doontaa waxyaabo la yiraahdo incentives oo ay ka mid yihiin Forever Car Plan oo 3 gaari oo dalxiisa iyo 3 gaari oo dalxiis free lagu geynayo sanadkiiba 2 jeer. check you magaciisa la yiraahdo German bonus oo lacago waaweyn dadka qaar mutaystaan oo malaayiin dollar gaaraya. German bonus waxaa la yiraahdaa oo ah in aad shirkadda ku yeelatid share joogta lacagaha trillions dollar ee ay sanad walba faa'iido aad qaybtaada ka qaadan doontid. shirkaddu haddii ay sanadkaasi dhaqaale faa'iido oo aad badan ay soo saarto dunida oo dhan, waxa aad leedahay faa'iido adiga percentage ku gaara. haddaba haddii aad diyaar u tahay inaad ka mid noqotid ganacsigan baaxadda leh, ku soo biir bahda Forever Living Product, kalena xiriir telefoonada shaashada ku qoran iyo WhatsApp linkiga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. waxaa halkaasi kuugu diyaara dad khibrad gaar ah u leh iyo la taliyayaal ka caawin doona sidaad ugu biirayso iyo sidaad ganacsigan u suuq geyn doonto. ha moogaanin Forever Living Product. hadda waxa uu ku eegyahay gobolka Minnesota marka loo furo jaaliyadda Soomaalida ee waddankaas.